ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay shir jaraa'id ugu soo horjeedaan banaanbaxa ay ku dhawaaqeen midowga musharaxiinta ay ku qabteen magaalada Muqdisho gaar ahaan xaruntooda hooyooyinka. ugu horeyn xoghayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka Bile Maxamuud oo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ka tirsan ayaa waxa ay ka warbixisay ujeedada shirkan jaraa'id. banaanbax lagu tilmaamay in nabadeyn ah oo ka dhacaya Jimcaha Soomaaliya waxaan ka soo horjeednaa shirkeena jaraa'id uu maanta ku saabsan yahay in aan banaanbaxaasi annaga si mugle haweenka Soomaaliyeed dal iyo dibad inaan ka digno inuu wadankeena maanta uusan u baahnayn banaanbax iyo qalqal siyaasadeed uma baahna wadankan ummadda Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa inaanan la barakicinin inaanan been loo sheegin inaan la dhihin dawlad ma jirtay banaanbaxa dawlad way jirtaa dawladeeniya taagan waxaana lagu jiraa hawl waxa socoto hawl ayadoo hawshii socoto oo waxaan ku raadey sidii la iskugu qordhiibi jiray Soomaaliya waagii horeeto iyadoo socoto oo lagu dhex jiro in la yiraahdo soo baxa banaanbaxa jire ma jirto dawladnimo annagu ma qaadan karno hadaan haweenka Soomaaliyeed. sidoo kale haweenka ururka qaybta ka ah ee ka soo qayb galay madasha shirka jaraa'id ayaa iyaguna la hadlay warbaahinta iyaga oo muujiyay afkaartooda ku aadan banaanbaxan loogu yeeray inuu yahay mid nabadeed iyo walaaca ay ka qabaan. waxa ay muujiyeen inay diyaar u ahayn qalqalgelin hor leh iyo dagaal dambe oo loo horseedo dalkeena oo hadda ku jira xaalad ka soo kabasho ah. Arrintan ayaa waxa ay ku saleeyeen in ay tahay mid ay ku orkacsanayaan haweenka, caruurta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed si ay ugu yeeraan ama u gaaraan yoolkooda siyaasadeed ee iyaga u gaarka ah waliba xilli dalka uu ku soo laba kacleeyay xanuunka dilaaga ah ee COVID-19. Ethiopia maxaa Kenya na haysato ya anaga isku maqan damiirkoodii nimankeena Soomaaliyeed waxaan dhaar ku marayaa inay sixran yihiin inay Kenya sixirtay dagaal ma rabno dagaal 25 sano wadankeena naga maqnaysiiyay aniga caruurtayda waxaan ku dhahay maxal dhibaatada ku soo marnay Yemen heer aan waxaan gaarnaa aan ku qadno heer waxaan ku dhahay Carab inuu soo shaqaysato dhabarkii dhinaan beelnay dhibaatada nalaga joojiyo qaxana laga joojiyo hooyaan ahay waan habaarayna dagaal kale meel waxayna malaha hana dhaafaan nimankan waxaan ku dhahay ilmahooda inay Europe meel bay geysteen annaga hadda waxaan ku rabaa inay naqayaan qax ma ka yeelayno qax waxay xaafadaha ku hayaan waa maqloyna habeen walba lacag la aruurinoya dadaan waxa leeyahay meeqa haysataa beeqil ma haysataa waxa way dawladda shisheeye ku shaqeysa ragii Soomaaliyeed dawladda shisheeye ku shaqeysanayo wadankooda la burburinoya imaaraadka habeenka sanadka cusub ilaahay baan ku dhaartay taas shayba maaldaha hotelka quruxda banay sameeyeen nalalka laga sameeyay nalalka isgidgidray hadaan arkay nimankeena Soomaaliya soo xasuustay ya ayakana hotel waxay u dabaaldegayaan sanadka cusub u dabaaldegayaan nalal ku sameeysanayaan annagana wadankeena burburinoy imaaraadka damiirkoodii ma qaxayno wallahi inaan qaxaynin waa iska qabanaynaa dhiigan u daadinaynaa inaan mar dambe dagaal aan sameeyeen mana soo banaan bixi karaan hadday soo banaan baxan baasas iyo qaadanaynaa. Batuule Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo soo xirtay shirkan jaraa'id ayaa si la mid ah tilmaamtay in haweenka Soomaaliyeed ay horey ugu soo daaleen dhibaatooyin ay badeen ragga Soomaalida hadda kadibna aysan diyaar u ahayn in shakhsiyaad qoysaskooda nolol farxadeed ku haysta qurbaha ay u horseedaan dhibaatooyin hor leh. gabdhaha Soomaaliyeed si wada jir ah ayay uga soo horjeedaan in dalka dib loo celiyo in dadka la barakiciyo in dawladnimada la dumiyo in dagaal hor leh 30 sano kadib loo horseedo ummadda Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed gablan iyo wiil la'aan horay u daashatay mayd fara badan ayay xabaasha dhigeen waxay ku daaleen dhaawac iyo isbitaal aysan lacag u hayn iyo inay u qidmeeyaan ummadda Soomaaliyeed maanta oo dawladnimada Soomaaliyeed ay taagan tahay oo qarankii Soomaaliyeed uu dhisan yahay in la yiraahdo waxaan sameynaynaa banaanbaxaasi waa banaanbax nabadeed lana yiraahdo waxaan ku banaanbaxaynaa dawladda waqtigeedu dhammaaday waxaan u bareeraynaa inaan ka soo jiidno villa Soomaaliya in dad maanta hogaaminaya
banaanbaxa ay ku sheegeen inuu yahay banaanbax nabadeed ay noo tabiyaan waxay nala tahay inay tahay waali inay tahay cudur inay tahay sida gabdhuhu u sheegeen sixir la sixray nimanka Soomaaliyeed oo lagu soo jeeyay inay dalkooda dawladnimadooda iyo maatidooda ay burburiyaan oo cagta mariyaan ma aha markii ugu horeysay oo Soomaali la isku diro ma aha markii ugu horeysay oo dalka la burburiyo oo calanka Soomaaliyeed oo aan cadow naga qaadan aan gacmaheena dhulka ku dhigno oo nafta ilmaha Soomaaliyeed iyo waayeelka Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo Soomaali ah ay dhibaatadu ku saameeyay meesha ay joogtay ama gudaha noqoto ama dibadda noqoto dhawaan ayay ahayd marka midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ay soo saareen in maalinka Jimcaha ay ku qaban doonaan banaanbax nabadeed oo ka dhici doona daljirka Dahsoon Xafsa Khaliif Cumar Kalsan TV magaalada Muqdisho ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka haddaba ka isticmaal teleefankaaga adeegyada IBS Bank